السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفريكا waxay caan ku tahay webiga Niil, buurta Kilimanjaro, ahraamta Masaarida, qowmiyadaha kala duwan iyo macdanta. Waana qaaradda ugu faqrisan dunida. Afrika waa qaaradda labaad ee ugu dadka badan adduunka, waxaana ku nool qiyaastii 1.3 bilyan oo qof oo u dhiganta 16% dadka ku nool dunida. In ka badan 50% dadka Afrikaanka ah waxay ka hooseeyaan 25 sano jir, taasoo ku tusaysa in qaaraddu leedahay mustaqbal ifaya. Caalamkana wuxuu indhaha ku hayaa qaaradda. Sidoo kale waa qaaradda labaad ee ugu badka weyn caalamka. Ma ogtahay in Afrika ay ka weyn tahay Mareykanka, Kanada, Indiya oo la isku daray? Afrika waxay ku fadhisaa dhul ka baaxad weyn 30 milyan oo kiiloomitir iskuweer. Ku soo dhawow macluumaad ku saabsan qaaradda Afrika. Afrika waxay hodan ku tahay macdanta, waxayna soo saartaa 95% dhaymanka adduunka iyo in ka badan 50% dahabka adduunka waxay ka yimaadaan Afrika. Kakawga waa maaddo laga sameeyo shukulaatada, waa maaddo lama huraan u ah samaynta shukulaatada. 70% kakawgaas waxaa soo saara qaaradda Afrika, gaar ahaan 4 dal oo dhaca galbeedka Afrika, waxayna kala yihiin Ivory Coast, Ghana, Nigeria iyo Cameroon. Ivory Coast iyo Ghana ilaa iyo hadda waa labada ugu badan ee soo saara kakawga. Marka la isku daro waxay soo saaraan oo ay beeraan kala bar kakawga dunida. Afrika waxay aad u soo saartaa biraha iyo macdanta muhiimka ah. Waxay soo saartaa labada macdanood ee ugu faa'iido badan, waana dahabka iyo dhaymanka. Sanadii 2008 Afrika waxay soo saartay qiyaastii 483 tan oo dahabka ah, oo u dhiganta 22% guud ahaan dahabka laga soo saaro dunida. Koonfur Afrika ayaa soo saarta ku dhawaad kala bar wax soo saarka dahabka ee Afrika. Ciyaaryahanka kubadda cagta ee Drogba waxaa lagu amaanaa inuu ka shaqeeyay xabad joojinta dalkiisa hooyo ee Ivory Coast, afjaridii dagaal sokeeye oo socday 5 sano. Afrika waxaa ku yaala jaamacadda ugu faca weyn dunida, jaamacadda Al-Qarawiyyin oo la aasaasay sanadii 859, waxayna ku taalaa dalka Morocco. Asalka magaca Afrika waxaa jira aragtiyo kala duwan, intooda badanna waxay rumaysan yihiin inuu ka yimaaday ereyada ay adeegsan jireen Finiqiyiinta, Giriigga iyo Roomaanka. Ereyada ugu muhiimsanaana waxaa ka mid ah ereyga Masaarida ay adeegsan jireen Afro-Ika oo macnihiisu yahay dhulkii hooyo, ereyga ay adeegsan jireen Giriigga ee Afraik oo macnihiisu yahay qabow la'aan, iyo ereyga ay adeegsan jireen Laatiinka Ebrika oo macnihiisu yahay qorax. Afrika waa qaaradda ugu faqrisan dunida, waana qaaradda ugu dib dhacsan adduunka. Waxaa ka wax soo saar badan hal waddan oo ku yaala Yurub, sida dalka Jarmalka oo u dhigma wax soo saarkiisa 3.8 trilyan. Halka wax soo saarka guud ahaan ee wadamada ku yaala qaaradda Afrika uu yahay 2.6 trilyan oo kaliya, taasoo ku tusaysa dib u dhac baahsan ee ka jira qaaradda. Boqorkii Leopold-gii labaad ee Belgium-ka wuxuu dilay qiyaastii 10 milyan oo qof oo u dhashay dalka Congo. Wuxuu samaystay ciidan isaga u gaar ah oo loo soo gaabiyo magacooda FB, kuwaasoo si joogto ah u qafaashan jireen dadka. Wuxuuna kufsaday dadka iyo dalkii reer Congo, wuxuuna geystay xasuuq wadareed oo aad u daran, wuxuuna tusaale cad u yahay bahalnimada reer galbeedka. Dadka afka Faransiiska ku hadla ee Afrika ku nool waxay ka badan yihiin kuwa ku nool dalka Faransiiska oo dhaladka ah, taasoo ku tusaysa wejiga gumaysiga Faransiiska. Ku dhawaad 40% dadka qaangaarka ah ee ku nool Afrika ayaa waxna qorin waxna aqrin. Biyo la'aanta ka jirta Afrika ayaa saameyn ku leh nolosha in ka badan 300 milyan oo Afrikaan ah. Cimilada sii kululaanayana xaaladda ayay sii adkeynaysaa. Webiga Niil waa webiga ugu dheer adduunka, dhererkiisuna wuxuu gaarayaa 6650 kiiloomitir. Afrika waxay hoy u tahay xayawaanka ugu ballaaran adduunka, waana maroodiga Afrika. Waxay hoy u tahay xayawaanka ugu dheer adduunka, waa geriga.
sidoo kale xayawaanka ugu xawaaraha badan adduunka waana haramcadka. dadka Afrika waxaa jira in ka badan 3,000 oo qowmiyado kala duwan ah, dadkaasoo asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Afrika, dhammaantoodna waxay leeyihiin af iyo dhaqan u gaar ah. luqadaha Afrika lagu hadlo waxaa ka mid ah Carabiga oo ah luqadda dadka ugu badan ay ku hadlaan, waxaana ku hadla 170 milyan oo qof oo ku nool qaaradda. waxaa ku soo xiga Ingiriiska, sidoo kale Sawaaxiliga iyo Faransiiska. Afrika waxaa ka jira 54 dal, in ka badan 1.3 bilyan oo qof ayaa ku nool qaaradda Afrika. waddanka ugu weyn ee qaaradda Afrika waa Algeria, waddanka ugu dadka badanna waa dalka Nigeria.